Assalaamu calaykum halkan waa Drus Media subscribe haddii aadan hore u dhihin hababka ay gaalada u dumiyaan xadaaradaha bulshooyinka muslimiinta. Dr. Mahdi Al-Manjara oo ah qoraa iyo caalim ka faalooda arrimaha bulshada ayaa qoray muuqaal uu uga hadlayo hababka loo mardumiyo xadaaradaha bulshooyinka muslimiinta. Qoraagu wuxuu yiri si aad u dumiso ilbaxnimada bulsho dhisan uma baahna inaad u adeegsato hubka nukliyeerka iyo kantaalada ridada dheer. kaliya waxaad u baahan tahay inaad dumiso qoyska, tayada waxbarasho iyo inaad jeesto dadka tusaalaha u ah ee bulshadaasi ku dayato. qoraaga oo sharaxaya wadooyinka loo maro hababkan ayaa yiri sidaan: si aad u dumiso reerka, meesha ka saar kaalinta hooyada ku leedahay barbaarinta ubadka. si taasi loo gaaro bulshada u sheeg inay hooyada u baahan tahay inay shaqayso, si ay uga faanto inay guriga joogto una dayacdo barbaarinta ubadkeeda ayna gurigaas uga soo baxaan caruur aan tarbiyeysnayn. si aad u dumiso waxbarashada, hoos u dhig tayada aqoonta, ardaydana u fududay qishka imtixaanka. hoos u dhig qiimaha macalinka, si ay ardaydu u yeesto fariinta uu macalinka xambaarsan yahay, cilmiguna uu u lumo, ayna bulshadaas uga soo baxdo arday qish ku soo baastay oo muhiimadoodu tahay inay qaataan shahaado bilaa cilmi ah. si aad meesha uga saarto dadka ay bulshadaasi ku tiirsan tahay, wax ka sheeg oo baadil ku samee culimada iyo mufakkiriinta, si aan hadalkooda loo dhagaysan looguna dayan, ayna halkaas uga soo baxdo bulsho marti ka ah diintooda oo aan rabbigood ku xirnayn. haddaba haddii uu guriga ka soo baxo jiil aan tarbiyeysnayn, ayna meesha ka baxdo kaalintii macallinkii wax ku bari lahaa dugsiga iyo iskuullada iyo jaamacadaha, meeshana laga saaro doorkii culimmada iyo mufakkiriinta, yaa u maqan bulshadaas. haddaba natiijada uu qoraagu sheegay waa mushkiladda iyo dib u dhaca maanta haysata dalkeenna iyo dadkeennaba. kasoo kabashadeedana waxaa saldhig u ah guriga. haddii uu ubadkeenna helo hooyo dhisan oo ku faanta kana shaqaysa barbaarintiisa, uuna goobaha waxbarashada ka helo macallin kobciya garaadkiisa, uuna haysto culimmo iyo mufakkiriin uu ku daydo, waxaa soo baxaya jiil ku dhegan diintooda iyo dhaqankooda, waxna u tari kara dalkooda iyo dadkoodaba. fadlan walaalo gaarsii walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed maqaalkan quruxda iyo qiimaha badan. subscribe kanaalka. wassalaamu calaykum.